Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin si weyn u faaqidaysa meelaha ay ku baxdo kaalmada dawladda Ingiriisku ay siiso Soomaaliya. Dawladda Ingiriiska ayaa waxay deeq gargaar siisaa Soomaaliya iyadoo u soo marinaysa hay'adaha maxalli ah iyo kuwa caalami ah. Waxaana la shaaciyay in qaybo kamid ah kaalmada dawladda Ingiriisku ay siiso Soomaaliya ay gacanta u gasho dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh. Qoraalo si qarsoon loo helay oo daabacday waaxda dawladda Britain u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ayaa waxay muujinaysaa in sababta koowaad ee kaalmadu ay gacanta u gashay ururada ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ay tahay in gacanta loo geliyay hay'ado u calool nugul argagixisada. La taliyaal la wareystay ayaa sheegay in saraakiisha kormeerku aysan awood u lahayn inay tagaan goobaha lagu bixiyo kaalmada si loo soo kormeero. saraakiil ka tirsan waaxda horumarinta caalamka u qaabilsan Ingiriiska ayaa qiray in dadaalada caalamiga ah ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska David Cameron xilligii ay socotay abaartii Soomaaliya qaybo badan oo dalka Soomaaliya kamidana aanay ammaan ahayn isla markaana lacag badan oo kaasha dawladda Ingiriisku ay ku bixisay Soomaaliya taasi oo qayb ahaan gacanta u gashay Al-Shabaab iyo Daesh. dawladda Ingiriisku faahfaahin rasmi ah kama aysan bixin eedayntan loo soo jeediyay oo ah in kaalmada qaybo kamid ah Soomaaliya ay siisay gacanta u gashay ururka Al-Shabaab. dawladda Ingiriiska ayaa si kamid ah dawladaha taageera dawladda federaalka Soomaaliya